بايلوتku waxa weeyaan hogaamiyaha maraakiibta markay dekedaha caalamka yimaadaan maraakiib kabaatintu ma taqaano meesha loo mara iyo meesha lagu xidhayo ma yaqaaniin marka dekedaha waxaa loo sameeyaa dad khumaro ku ah badda maraakiibta dunida marta markaas markuu ka ritaayiro badweynta inuu maro kabtanka maraakiibta wada waxa uu shaqo ka helaa haabooyinka dekedaha markaas pilot buu ka noqdaa maraakiibta ku hagaa dekeda meesha ku xidhanayo iyo meesha loo marayo dekeda marka baylotku isaga kala wareegaya in markab kasto dootana isaga shukaantii soo qabanay maanta ma qabanaya afku mu ka hadlaya shukaanta waxa uu hayaa nimanka maraakiibta ka shaqeeya la yiraahdo sailorska kuwaasa shukaanta uu haya laakiin kabtanku afka ugu ridaya iyo pilot ka shukaanta haya xagga awdu iyo jooji iyo wixii lamida intee lagmad marka adigu dekedan berbera aad ka ahayd in pilot shaqada qabta waxaan ka ahaa almost konton sanadood 69 baan wadanka yimi marka waxaan imtixaanka ka galay dekeda Kismaayo halkaasaan 8 bilood ilaa 9 bilood ka shaqeynayay markaasaan idhi ii bedel berbera marka 69 ilaa hadda waa joogaa dekeda bal ka waran marka arintan in waxaad u soo joogtay iyadoo saldhigyo military dekeda berberaha ay laga samaystay oo markii hore Ruush uu samaystay markii dambena Mareykan ilaa iyo burburkii in koobiya sagaashakii bal iiga arrimaha maxaad u soo joogtay waxaan soo joogay anigu waxaan ugu imid dekeda berbera leeso bedelay oo markuu dekeda dhisay isagaba haystay dekeda berbera Ruushku maxaa markaa maraakiibtii balka war maxaad ka xusuustay ciidanka joogay xeriyii markii dambe la sameeyay xeriyuhu waxay ahaayeen maxay to airportka horta airport caalami ah buu sameeyo 5 kilomitir oo aad u dheer oo mala Afrika oo dhan aan jirin iyo saldhig kaas buu ka sameeyay halka maraakiibta maxaa iman jiray hubka iman jiray maxay hubkiisa isugu waa iman jiray hubkiisa meel go'no dhigan jirtay maraakiibta markaa timaadee ku soo xiranaysaa adigu ma soo kaxayn jirtay ana soo kaxayn jiray waxay maraakiibtu ahaayeen kuwa diyaaradaha qaada kuwa maxay soo sabareen nuclear-ka qaada ayaa qaarkood ahaayeen oo inta fuushaabad markaa caad soo hagi jirtay absolute ana kidigo soo xidhi jiray waxa jiray laba pilot oo Russia ayaan ugu imi oo iyaga soo xidhi jiray iyaga ay diri jiray markaas oo aan markaa uu ahaa maxay to hage waqtigii Mareykankana ka warsaa si leeg dekada ma isticmaali jireen dekada waxay Ruushku Mareykanku bilaabay 82 ilaa maxay to 85 marka Mareykankuna markaas airportka buu ayuu isaguna qabsaday oo iyo campna uu ka samaystay maxay to dekada ma isticmaali jireen maraakiibta Mareykanku markaas iyaguna way isticmaali jireen maraakiibta Ruushka ama qarbiyiintuba ama aircraft noqoto ama destroyers ayaa iman jiray iyaguna iman jiray dekada iyo sabarinada maxay to Mareykanka ama maxay to nimanka qarbiga la yiraahdo sidii Ruushka oo kale uma iyaguna Yusuf waad aragtay imaka in Imaaraadka ka samaysanaya saldhig adiga aragtay in kasto airportka la gali kari laakiin dekada yarna way ka sameynayaan oo airportka soo gasho xagga badda ku aadan in sidee baad kula muuqataa saldhigga la sheegay leeyahay Imaaraadka leh waxa ay u sameynayaan Somaliland bay saldhig lagu tababaro ciidamada Somaliland iyo kuwa badda iyo kuwa cirka ayaa lagu sameeyaa Imaaraadku iyaga naga caawinaya iyo dawladaha kale ee qarbiyiinta adiga farsamo yaqaan markaad eegto sidee bay markaad eegto aad markii hore u soo joogtay in saldhigii Ruushku ku lahaa berbera saldhigii kale isaguna markii dambe uga dambeeyay oo ka dhaxlay in Mareykanku ma kula tahay ee waxa soo ciidan imanayaan iyo waxa soo maraakiibi in wax khatar ku jiraan ma wax khatar anigu ma arko saldhigga kana waa saldhig yar iyaguna hadda way qayb bay ka qaadanayaan way isticmaalayaan ma aragtay adigoo ma gashay airportka oo halka dekada yar iyo airportkiisa loo hagaajinayo ma shimar ma lagu ogolaaday man chegina actually waayo in doore bay u jirtaa maxay tahay dekada xagga
galbeedka qoraxudhaca way ka jirtaa laakiin dhulkaas oo dhan waxaa qabsaday baa baamushtari oo xidhxidhayba meel loo maraba ma jirto laakiin lamana ogolo dee dadka looma ogolo inay galaanba soo maha maxaababa loo ogola cidiba ma imamanba weli cidiba waa un dhismuun laga samaynaya imika weeye wax ciidan oo imika yimi ama loo samaynayo meelo ay galaan ma jirto ayay leeg tahay aniga